الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. meel kastood joogtaan waxaan igu salaamay salaanta islaamnimada. waxaan ilaahay sanad wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. dadka muslimiintu waxa ay baryahan qaarkood u dabaaldegayaan dhacdadii weyneed ee xaadisatul israa wal micraaj oo nooga baahan inaan isla taag la samayno insha allah. arintaasna waad arki doontiin insha allahu tacaala, iyadoo oo aan ku xidhayno dhacdooyinka ka dhacaya caalamka islaamka, gaar ahaan wadanadeena, iyo sidii aanu la dhaqmi lahayn oo uga faa'iideysan lahayn siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. inta ka horeysa waxaan jecelahay inaad qasiidadan ama nabi ammaankan aad ila dhegeysataan uu noo qaadayo nin caalamiya insha allahu tacaala. شوقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب رفقا صلي على محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبقار حراء تألق، يا محمد تهرقه فأتى وحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك. صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه
وترضاه صلى الله عليه وسلم. اوكي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نتخلص إن شاء الله. الحمد لله walaalyaal ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala inoo saamaxay hada alyowm maalintan inaan halkan iskaga waranno insha allahu tacaala arrin muhiima oon u bixinay sideen u akhrinaa dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacaya dunida islaamka annaka oo fiirinayna siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam gaar ahaanna dhacdadii weyneyd ee loo yaqaanay xaadisatu lisraa'i walmicraaj saabay ugu qoran tahay taariikhda dhacdadii weyneyd ee nebiga loo habeen guuriyey magaalada alqudus ashariif ee ku taala dalka falastiin amba ashaam ku taala lagana habeen guuriyey magaalada barakaysan ee makal mukarama oo uu ku yaalo masaajidka xaraamkii oo uu nebigu deganaa calayhi salaatu wasalaam. kadibna loo qaaday dhinaca sare oo uu la kulmay ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala oo laga kor qaaday adduunka waxa makhluuqaad jiro oo dhan oo la geeyey meel uu ilaahay un garanayo tabaaraka wa tacaala. markaas waxaan uga jeednaa darsigan inaan dhacdooyin fara badan oo dunida ka dhacaya inaan ku akhrino waxa loo yaqaano nuurka siirada nebiga calayhi assalaatu wasalaam. 3 arrimood baan jecelahay intaan siirada nebiga bilaabin inaan horta kelmad aan ka idhaahdo. kelmadda koowaadi waxa weeye limaada nadrus maxaan u diraasaynaa siirada nebiga, limaada naqra maxaan u akhrinaa nebi muxamed taariikhdiisa calayhi salaatu wasalaam. waxaan u akhrinaa liasbaabin 3 sababood. awalan horta waa nebigii ilaahay noo soo diray ee na lagu dhahay ku dayda laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. 2 waxaan u akhrinaa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam in aan baranno taariikhda qofkii dunida ugu weynaa sidaan arki doonno oo rag fara badan ay u qireen. 3 inaan garanno siduu nebigu u xalinayay mashaakilku markay dhacaan calayhi salaatu wasalaam. nebiga problemyo waaweyn baa ku dhacayey, isagay ku dhacayeen, qoyskiisay ku dhacayeen, bulshada uu kasoo jeeday ku dhacayeen, bulshada uu kasoo horjeeday ku dhacayeen, caalamkay ka dhacaysay dhacdooyin culculus. nebigu uu la tafaaculayey, waxbuu ka oranayey, waxbuu ka dhahayey, ra'yi buu ka dhiibanayey. wuxuu ahaa qof solution sida caalamiya calayhi salaatu wasalaam. idan nebiga maxaan siirihiisa u akhrinaynaa saan u akhrinayna arrintaas waa inaan isla garanno. arrin labaad baa jirta oo siirada nebiga ku saabsan calayhi salaatu wasalaam. dadku markay siirada nebiga akhrinayaan maanta waxaa jira 2 diraaso oo aada u fool xun oo siiraha lagu akhriyo. diraaso waxaa dhahdaa tajzi'iya mutanaasira, yacni qof baa akhrinaya siiriyo googo-an. nebigu wuxuu dhashay, nebigu xaliima nuujisay, nebiga waxaa la geeyey baadiye, waa laga soo celiyey calayhi salaatu wasalaam, hooyadii baa dhimatay, aabii baa isagoo calooshooyadii ku jira dhintay, agoon buu ahaa, abi aalib baa kadibna maaragtay kafaalo qaaday, waxaa ujeeda cabdulmutalib, kadibna abi aalib, kadibna sidaas buu nebigu ku noqday. nebigu haddana waxya kusoo degay. hadal saa isugu xidhan oo maaragtay taariikh sardiya oo laga waramayo uun nebigii calayhi salaatu wasalaam. waxayna u qaybiyaan ragga taariikhda nebiga dabagura ee hore. taariikhda nebiga 2 u qaybiyaan. markuu nebiga uu ahaa marxaladii laga adkaa iyo marxaladuu adkaaday, labadaa un bay ka soo qaadaan. laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam biictibaarihi isagoo insaana ma aragno ilaa waxaan ka aragnaa sunnada nebiga, laakiin siiradu kama sheekayso. nebiga biictibaarihi zawjan isagoo xaas leh oo qoysas leh lagama sheekayo. biictibaarihi aban isagoo aabbaa, biictibaarihi waalidan, biictibaarihi qaa'idan isagoo hogaamiye ah, ciidan hogaaminaya, dowlad hogaaminaya, sunnahay ka buuxda laakiin siiruhu isma duldhigo. biictibaarihi qaadiyan isagoo qaadi ah oo jeysh ah oo xaakima, biictibaarihi siyaasiyan mucaaridan isagoo siyaasi ah oo nidaamkii maka jiray kasoo horjeeda, biictibaarihi siyaasiyan qaa'idan isagoo hogaamiye ah oo siyaasi ah lagama waramo nebiga calayhi salatu wasalaam. biictibaarihi muslixan isagoo oo muslixa oo hagaajinaya bulshabada, biictibaarihi isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam mufakiran camiiqa alfikri ah, aada u fikira oo aada u helaya maskaxdiisu ay rogrogmanayso lagama sheekayo. biictibaarihi nebiga lagama sheekay istraatiijiyan isagoo istraatiijiya. waxaas oo dhan siiraha laguma arko. limaada? lianna siirihii waxaan u diraasaynaa si aanan ahayn mowduuci objective aan ahayn oo cilmiyeysnayn. arrintaasina waa muhiim.
arinta saddexaad ee jeclaha inaan waxa weeyaan isku xidhka siiraha nebiga sallallahu alayhi wasallam iyo dhacdada taariikhiga maanta aan soconno waa muhiim. maxaa yeelay nebigu maraaxil kastoo maanta bini aadanku ay marayaan isagu ilaahay mariyey, wuxuuna nagu tusayey inaan marxalad walba kala soo baxno darsiga aan uga baahannahay marxaladda. lianna nebiga oo dhan ma noqon karno, mana gaari karno, laakiin ilaahay wuxuu inagu leeyahay ku dayda sala allahu calayhi wasalam. laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. su-aal baan isweydiinaa markaan saddexda arrimood ka soo hadalnay. nebi muxamed maxaana loo yidhi ku dayda? limaada qiila lana? muxuu ilaahay inooga dalbay inaan ku dayanno nebiga calayhi salaatu wasalaam? waxa weeyaan nebigu ilaahay marka uu abuuray tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay mid kaamil ah, insaan buuxuu ka dhigay, insaan naaqis aan lahayn baa laga dhigay, insaan meel walba ka dheeli tiran baa laga dhigay, insaan loo baahan yahay oon baahnayn baa laga dhigay. yacni bini aadanimaa ku jirta laakiin cajiib ah, diqo leh yaa laga dhigay. walihaada buu ilaahay yidhi kan waan buuxiyey isaga uunbaa buuxi isaga uun ku dayda, waxa kaloo dhan waa naaqis weeyaan. walihaada buu ilaahay tabaaraka wa tacaala nebiyada kale ku sheegay sifaad fara badan bay lahaayeen, laakiin waad ogtay nebi ibraahim waxaa lagu sheegay sidiiqan nebiya, nebi run badan sheega ah. nebi ismaaciil saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya, nebi muuse mukhlasan wa kaana rasuula nabiya, wahaakada nebi walba waxaa lagu sheegay hal sifo ah oo uu ku dheeraa, oo uu ku gundheeraa, oo uu aada u dabaqay ayaa lagu sheegay. laakiin kullu haadihi sifaat waxay ku ururtay, ay iskugu imatay, oo midna ay ka maqnayn nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu yidhi nebiga isagoo ka hadlaya, wa inaka la calaa khuluqin cadiim. nebi muxamedow waxaa dul fadhidaa akhlaaqda ta ugu weyn. akhlaaqdu waxay kuu tahay carshi iyo kursi, adaa ka koreya. akhlaaqda adiga kugu ama abtirsatee, akhlaaqda kuma abtirsatide, akhlaaqda kugu abtirsata. idan nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wulida alhudaa falkaa'inaatu diyaaun wafabu zamaani tabasumun wathanaa'u. axmed shawqi raximahullah markuu nebigu dhashay dunidoo dhan baa iftay, zamankuna af buu yeeshay, kadibna wuxuu bilaabay zamanku iyo waqtigu inuu ammaano, uuna dhowla cadeeyo, uu qoslo liajli rasuul calayhi salaatu wasalaam. idan nebigu sala allahu calayhi wasalam insaan kaamil u ahaa. ilaahay marka uu soo saaray nebiga waxaa la siiyey qiraa'o. waxaa lagu yihi ya rasuul allah, adigu ma tihid qofkii ugu horreeyey ee taariikhda soo mara ee diinta islaamka iyo bini aadanka u dagaalama. waxaa kaaga horeeyey nebi aadan ilaa iyo nebi ciise. walihaada waxaa lagu yihi taariikhdooda akhri. ilahay wuxuu ka nebi maxamed taariikhda ambiyada akhri. anaa kugu sheegaya qur-aanka laga soo buuxiyey sulusul qur'aan taariikh. qur-aanka marka saddex loo qeybiyo waa qisas iyo taariikh. limaada? lianno bini aadanku waxay sameeyaan waa wax soo noqnoqdo weeyaan. waa tashaabahat quluubuhum atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun. marka dadku way soo noqnoqdaan oo taariikhdu yuciidu nafsahu way soo celisaa. maadaama ay sidaa tahay, sida looga hortagayana xuluushu waa inay isku ekaato maahine, waa inaa lagala soo baxo cibro. walihaada buu ilaahay nebiga ka yidhi ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahum iqtadih. nebi muxamedow ilaahay wuxuu hanuuniyey dadkaas aad aragtay sala allahu calayhi wasalam, wuxuu hanuuniyey ambiyada intaa leeg. adi maxaa markaa kugu waajiba? hanuunkay hanuunsameen ku dayaa lagu yihi, raac baa lagu yihi nebiga sal slam. idan nebigu wuxuu raacay ambiyadii, mid waliba wuxuu ku cadiimahaa buu kala soo baxay, taariikhdoodii buu akhriyey. annakana markaa maxay nagu waajiba? inaan isaga ku dayano. isagii baa lagu soo ururiyey, waxay u bixiyeen culummadu altajriba annabawiya, experiencekii nebinimada waxaa lagu kulansiiyey sala allahu calayhi wasalam. okay, nebiga saas baan u diraasaynaa, lihaada nadrusuhu naqra'ahu. laakiin ta ugu dambaysa waxa weeyaan nebiga natalamasu fiihi, waxaan ka dhex doondoonaynaa taariikhdiisii alxuluul, solishinaan ka doondoonaynaa. ninka rabaa ee qoys leh ee buuqsan, nebi maxamed taarikhdiisa ha barto. ninka mashaakil psychologicala iyo psychologia iyo nafsi ay hayaan, nebi maxamed taarikhdiisa ha doondoono. mar badan bay ku dhaceen mashaakil oo lagu yihi laa taxzan, ha murugoon lagu yihi, ha quusan lagu yihi, ha cabsan lagu yihi. nebiga waxaa la tusay solisyoonno ayaa la siiyey. qofka ay haystaan mashaakil dhaqaale ah, nebi maxamed bay qabsatay mashaakil dhaqaale ah, sida uga baxay nebiga ina baray sala allahu calayh wasalam.
afar bilood bay caasha tiri yaan biyo tibir cunaynay shuhuur bilaadna soo mariyey aan cunto cunayn waxaan ahayn biyo tibir idan wuxuu kaga baxayay problemyada nebigu maxay ahayd sal allah alay wasalam dhinaca dhaqaalaha nebiga waxaa qabsaday mashaakil siyaasiyo adag baa qabsaday qaswat laxzaab waxaa qabsatay xaadisat lisraa walmicraaj wixii ku horeyay daa'if dhibaatooyin waaweyn baa qabsaday siduu uga baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam idan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam haddaad rabtid jamiicu lmashaakil inaad ka baxdid isaga akhri natalamasu fii siiratihi sala allahu calayhi wasalam siiradiisa waxaan ka doondoonaynaa dhexdeeda waxa weeye waa xal iyo solution uma akhrinayno inaan nebiga akhrino uun ma ammaanayno nebiga inaan ammaano uun ma jeclaanayna faqad nebiga inaan jeclaano uun waa jeclaanaynaa laakiin waxaan u jecelnahay waxa weeye liannahu waa munkid waa badbaadiye sala allahu calayhi wasalam waxaan inii soo ururiyey waxaan akhriyey rag badan oo aqoon-yahana oo reer yuruba maraykan leh kanada leh oo nebi moxamed diraaso cilmiga ku sameeyey nebi moxamed muxuu yahay nebi moxamed sal ll salam ma wadaadba ma darwiish yaroo miskiinoo miskiid fadhiyo oo la shidaari karo ah nebi moxamed sal ll ly salama ma tuugba ma waraaba ma dadlaaya nebi moxamed ma libaax dadka cunaa nebi moxamed ma dhigdaadiya nebi moxamedi ma mujrimba sala allahu alay wasalam walciyaadu billah nebi moxamed sal salama muxuu ahaa nebi moxamed maada kaana rasuulu llah diraaso cilmiyaa lagu sameeyey nebiga sal salam dadka nebiga diraaseeyay waxay u kala baxaan ee mustashriqiintu saddex qolo mustashriq waxaa la dhahdaa horta saan u fahno orientalist baa dhahdaa orientalism baa cilmiga dhahdaa raggan orientalistiga ee muslimka baadha taariikhda bariga baadha taariikhda waa reer galbeed waxay baadhaan taariikhda bariga sharqi baa ku jira istishraaq baa dhahdaa waa cilmiga lagu baadho taariikhda dadka reer bariga dhaqankooga diintooda fikirkooga gaar ahaan muslimiinta yaa la baadhaa waxaa jira dad dhan oo culamaa oo ku takhasusa soomaalida oromada canfarta adarida annaka dhexdoonoon ku takhasusa kurdida ku takhasusa carabta ku takhasusa lahajaadka carabta ku takhasusa qur'aanka ku takhasusa xadiiska nebiga ku takhasusa fiqhiga ku takhasusa falsafada iminka matalan filosofiyada mustashriqiinta jarmalku waxay aada ugu takhasusaan qur-aanka iyo adabka carabiga mustashriqiinta ingiriisku qaarkood xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam mustashriqiinta faransiisku falsafada islaamka wahaakadaa bay isku baahiyaan si ay u fahmaan marka limaada yadrusuun saddex qole u kala baxeen qolo waxay noqotay mustashriq mucaadiya cadow ah oo ku dhamaysanaya istuwaarkiisa isagoo cadow ah ninka dhahda edward saciid oo ahaa nin falastiini oo kristana oo maraykanka ka dhigi jiray professor jaamacad ka ahaa oo kutub badan istishraqa ka qoray iyaa qoray waxaas arinta iyo kitaab yar oo mustafa subaaci raximahullah uu ka qoray alistishraaq walmustashriquun maa lahum wamaa calayhim waxaa dhahda qolada labaad waa mustashriqiinta iyaku muxaajidka ah laysuu muslimiin walaysuu acdaa mana islaamaan cadowna ma noqdaan kuwaas baan maanta isla diraaseen kuwa baana ugu badan marka dambe qolada saddexaad waxaa dhahdaa almustashriquun aladiina aslamuu waa mustashriqiinta marka dambe islaama ee islaamku ibhaar uu ku sameeyo sida tolistowi filosofkii weynaa ee wadanka ruushka okay kuwaas baan markay nebiga akhriyeen ay baadheen ay ka daba tageen ay taariikhdiisa rogrogeen ay siiradiisa akhriyeen waxay ka soo saareen nebi moxamed inuu yahay sala allahu calayhi wasalam nebiyun jamaca bayna maxaasini muusa wa masaaya ciisa calayhi salaam waxay dhahdeen nebi moxamedi wuxuu isku keenay wanaagyadii nebi muuse iyo wuxuu gaarka la ahaa nebi ciise limaada nebi muuse wuxuu ahaa insaan shadiidu lba'si dagaalyahana wuxuu ahaa nin ragga iska dhaba wuxuu ahaa nin xoog badan oo insaaniyadiisu ay tahay in uunan dadka uunan ka cabsan waxbaba nebi ciisena calayh salaam wuxuu ahaa insaan mutasanami qof akhlaaq leh ruuxaaniya dadka oo dhan hadduu qofku dhirbaaxo dhinaca kale u dhiganayay wuxuu odhanaya ifcal maa tashaa khud maalii maa shita maalkayga waxaa dooni ka qaado laakiin ibxath illah ilaahay baadh saas buu odhanayay idan waxay dhahdeen nebi ciise wuxuu ahaa ruuxiyun khaalis nebi muusena wuxuu ahaa insaaniyun khaalis idan nebi moxamed muxuu ahaa calayh salat salaam wuxuu ahaa labadaaba isku keenay jamaca bayna almalxamati waalmarxama naxariis wuxuu ahaa xad aan lahayn raganimada iyo cadow iska dhacana xad ma lahayn nebi moxamed sal ll ly slam markuu dagaalku dhacayo safka horuu joogay
marka naxariis loo baahan yahayna wuxuu ahaa raxmad aan xadi lahayn sala allahu calayhi wasalam. ilaahay wuxuu ihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. wadaadada waxaa jira qaar soo saara nebi maxamed naxariistiisa laakiin qarya raganimada nebi maxamed. waxaa jira wadaadada qaar nebi maxamed geesnimadiisa soo saara iyo siduu cadowga iska dhicinayay laakiin qarya naxariistiisa. nebi maxamed sal slam labadaba midna lama qarin karo. haddaba ikhwaani fillah, filosoofka ingiriiska ee la dhahdo thomas carlyle wuxuu qoray kitaab uu u bixiyey alabtaal, geesiyadii taariikhda soo maray. geesiyaal badan buu ka warramay. kitaabkiisa wuxuu ku yidhi u fiirsada, caqli ku eega, fikrad fog ku eega, maskax bisil ku eega, indha noolna ku eega. hadalkiisaas wuxuu yidhi laqad asbaxa waxaa noqday wax lala yaabo, min alcaar caar waxaa noqday, ceeb waxaa noqday, calى أyi fardin mutamadiyinin min abnaa'i hada alcasri, qof kasti oo ilbaxa oo casriga maanta nool inuu dhegaysto, an yusqiya inuu dhegaysto waxa ay sheegayaan jaahiliinta xaaqidiinta ah ee diinta islaamka been ka sheegayaan. qofku markuu cilmi leeyahay halkaasuu gaadhaya. markii uu ninkii holandeegu bilaabay inuu nebiga caayo, uu weeraro, uu diinta caayo, uu kadibna bilaabay inuu qur-aanka akhriyo iyo xadiiska nebiga, uu islaamay. wuxuu markaa sheekhan leeyahay, isaga kahor buu qoray 10 sano, wuxuu leeyahay ceeb bay noqotay inuu qofi dhegaysta maanta inuu nebi maxamed dadka beenu sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam. wa ana muxamadan laysa binabiyin, nebi maxamed nebi maaha haddii lagu idhaahdo ha dhegaysan buu yidhi. wa ina calayna buu yidhi, waxaa nagu waajiba inaan la dagaalanno haddaad maqalla hadallada noocaas oo kaleeta ah. hadalkaas waxaa yidhi thomas carlyle. ikhwaani fillah, thomas carlyle waxaan idhi waa filosof, waa aqoon-yahan ingiriiska u dhashay. waxaa jira mustashriq orientalist ingiriis canadian ah oo dhada dr zweymer. kitaab buu qoray uu u bixiyey asharqu wa caadaatuhu, bariga iyo dhaqanadooda. sharqigan aan degannahay muslimiintu ay degan yihiin iyo caadooyinka muslimiintu ay leeyihiin amba dadka kale muslimiinta la nool ayuu baaray. cilmi baaris buu ku sameeyey, waa professor jaamacadaha ka dhiga. wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa, walaa shaka uuna shaki ku jirin, min acdami alquwaad almuslimiin addiiniyiin, hogaamiyaasha muslimiinta ee diiniga ee taarikhda soo maray. wuxuu ihi waxaa wayusdaqu calayhi alqowl, waxaana run noqonaya aydan, weliba intaa marka aan sheegay waxaa run iga noqonaya inaan idhaahdo inuu ahaa nebi maxamed sal slama nin muslixan qadiiran, waa nin wax hagaajinayo, muslixa, formatera, reform sameynaya, reformatera oo wax hagaajinaya, oo weliba qadiira, kartile, wa baliigan fasiixan, nin wuxuu ahaa hal abuur leh oo yaqaana sida bini aadamka loola hadlo, fasiixa luqadiisu ay fasiix tahay, wa jarii'an miqwaaran, wuxuu ahaa buri geesi soo majeystaa, wa mufakiran cadiiman, wuxuuna ahaa caqli weyn sala allahu calayhi wasalam, nabigeena sal slam. waxaa ninkaasi waxaan idhi waa zweymer, waa mustashriq, waa aqoon-yahan u dhashay wadankan canada. filosofka ingiriiska dhahda bernardshaw oo la wada yaqaano isaga, kitaab buu leeyahay dhahdo muxamed, bas kitaabkiisa waxa magaciisa muxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi ina alcaalama, adduunku, axwaju maa yakuun, wuxuu maanta ugu baahi badan yahay, maanta wuxuu ugu baahi badan yahay ilaa rajuli nin fii tafkiiri muxamed, sidii maxamed u fikiraya, siduu maxamed sal slama solution u helayay nin u heli karaya. ma aha miskiin meel iska fadhiyo adduunku suu socdo aan garanayn, maaha. ma aha wadaad yar oo islaamaha intuu $100 ka qaato qur-aan ku akhriyo o dhahdo waagtaa diintu waxaa dadka ugu sheekeeya, maaha. maaha nin sidii nebi maxamed u fikiraya u fikiro oo solution wada yaa loo baahan yahay buu ihi sal ly slam. wuxuu ihi hada nabiyu, nebigani wadaca diinahu daa'iman, diintiisa wuxuu dhigay mawdica alixtiraami walijlaal, meel la ixtiraamo oo la weyneeyo. waxa cajiiba, maanta yurub waxaa ka socota islamofobi, cabsi weyn baa ka jirta, laakiin filosofyadoodii qarnigii 20aad ina dhaafay bartamihiisii markuu cilmigu cilkaa marayay san bay u hadlayeen. wuxuu leeyahay diinta nebi maxamed buu sheegay, wuxuu ihi fainaha aqwa diin, waa diinta ugu culus ee karti u leh inay diinaha kaleeto oo dhan calaliso. khaalidan, waa diin waaraysu ihi khuluud alabad, intuu waqtigu jiri doono dhan.
ilaa qiyaamuhu dhacayo wakhuluud labad bun abad weligeed buu jiraysa diintani maaha xadiis maaha qur'aan waa nin filosofa bernard shaw la dhahdo oo ingiriis ah okay caalim faransiisa oo aqoonyahan weyna oo sadio luis la dhahdo luis wuxuu yidhi isaguna low lam yakun muxamadun nabiy alcarab nabi maxamed nebi carbeed maahayn nebi loo soo diray kuwii geela iyo ariga iyo lo-da la joogay ee miyiga joogay saxraaga noolaa ee carabtaha maaha buu ihi faxasba maaha buu ihi rajulan yubashiru alcarab maaha nin carab uu hadaynayay ma ahayn bal wuxuu ahaa lilcaalam adduunkao dhan buu la hadlayay low ansafahu nnaas dadku hadday ku hadlaan cadaalad buu ihi si cadaalada haddaan u hadallo nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam hada alcabqariy alfad cabqarigaa weyn ayuu ahaa waxa cajiiba waxa weeye halkan haddana inoo yaalo caalimka filosofka amba hal abuurkii weynaa ee la oran jiray maaragtay tolstoy waa ruush waxay dhahdaan culummadu u islaameen markuu akhriyey kitaab yar oon ciyaalkiin oo dhigtaan oo dhahda xadiis arbaciin isagoo xadiis arbaciinta wuxuu ku akrinaya caqli iyo cilmi xadiis arbaciinku akhriyey 42 xadiis weeyaan imaam nawawi baa ururiyey inama alacmaalu binniyaat buu ka bilaabay ilaa uu dhammeynaya xadiisaantii u wada akhriyey kadibna wuxuu sheegay wuxuu yihi waxani waa tawsiyaatu muslix nin hogaaminaya adduunka waanooyinkuu qoray weeyaan buri sal alla alay salam markaas buu islaamay waad ogtihiinna inuu ku dhintay isagoo meelaha jiifa oo miskiina cilmigii uu qoray oo dhanna bini aadamku siiyey ma imin jirin kutubtiisa wuxuu yihi ninkaasi hadalka u fiirsada maanta marxaladan soconana eega calayhi salaatu wasalaam alxamdulilah wuxuu ihi filosofka ruushkii yakfii muxamadan nebi maxamed waxaa ku filan fakhran ammaan ugu filan faanna ugu filan annahu khallasa min umma inuu ka soo saaray ummad daliilatan dulli ah ummaddii carbeed bershiyaankuna guumaysanayeen roomaankuna guumaysanayeen xabashada etoobiyana ay guumaysanaysa oo yaman sanca waxaa haystay etoobiya dhul badan oo ka mid a jasiiratulcarabna waxaa haystay maxaanku dhahdaa ilaa iyo balastiin iyo roomaanka haystay dhul badan oo jasiiratulcarab ka mid a oo carabtu leedahayna waxaa haystay maxaanku dhahdaa bershiyaanka wuxuu dhi inuu ummad daliilatan dulli ah damawiyatan dhiiga caba sidaa maanta dhiigga daadisa oo cabta oo dadka mishaar ku googeysa inuu ka soo saaray min makhaalibi shayaaiin alcaadaad maaragtay cidiyihii makhaalibtii shayaadiinta caadooyinka xunxun inuu ka soo dhex saaray wa fataxa calaa wujuuhihim wuxuu furay oo albaabka u furay dariiqa ruqiy inay horumar gaadhaan ruqiy inay kor u kacaan wataqadum horumarna gaadhaan wa ana shariicata muxamed hadalka muhimka waa ka wayaan shariicadda nebi muxamed sal ll ly slam waa shariicad bini aadamnimo buuri satasuud alcaalam adduunkao dhan yadaa qabsan doonta adduunkeedaa qabsan doonta limaada maxay dunida u qabsanaysaa linsijaamiha waxay la falgalaysaa maca alcaqli caqliga shareecadda nebi maxamed iyo caqligu isma diidaan walxikmati iyo xikmadda falsafadda adduunkan maxaa loo sameeyey halkuu u socdaa jawaabay ka bixinaysaa idan hadihi shariica labadaabay la falgalaysaa maadaama ay la falgalayso iyaday hari doontaa diinaha kao dhani way baabi'i doonaan buri waxaa sidaa yidhi waayo waa tolstoy waan ku soconaa yar kaatib weyn oo wax qora muarikh faransiisa oo xagga taariikhda ku takhasusay limaktaan la yidhaahdo wuxuu yihi idaa aradnaa haddaan doonno inaan doonno qof weyn haddaan rabno haddaan jecelnahay inaan taariikhda ka fatishno oon ka baadhno oon rogrogno oon ujeedadeenu tahay inaan ogaano qof weyn oo ay ku xaqiiqsantahay dhammaan sifaadka weynidu sifaat alcadama alinsaaniya ma heli karna buu ihi falan najida siwa muxamed sala allahu alay wasalam heli kari mayna waxaan ahayn nebi muxamed buu ihi alayhi salatu wasalam limaktaan okay waxaan kusoo gabagabaynayaa ninkii qoray ragga waaray waa 100 waxaana ugu weyn nebi muxamed ee maraykanka ahaa michael hars ee saxafiga ahaa ee dabagalay alcudamaa fi taariikh taariikhda dadka waaweyn ee soo maray kitaabu markaa qoray wuxuu hi alcudamaa 100 wa acdamuhum muxamed dadka taariikhda galay waxa waaweyni waa 100 way badan yihiin alkhaaliduun hadao dadka waari way badan yihiin laakiin dadka waaweyn wuxuu hi waa 100 ma dhaafsan waxaana ugu weyn buu hi nebi muxamed ilaa imika calayhi salaatu wasalaam dadka waaweyn taariikhda galay la garanayo nebiga ugu weyn
ونوgu weynan doona insha Allah wuxuu yiri marka uu sheegay limaada buu u doortay inuu nabi Muhammad yahay qofka ugu weyn uu cileynayay kooskeega sababteeda uu sheegay wuxuu yiri in ikhtiyari Muhammadan in aan doorto nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam liyakuna al-awwal inuu noqdo koobaad fi ahami wa a'zami rijal at-tarikh ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ragga taariikhda inaan ka dhigay Muhammad marka aad aragtaan qad yudhish al-qurra dadka wax akhrinaya Europeanka iyo reer galbeedku yaabayaan limaada buqwa waay waxa uu cabiranayaan walakinahu waxaan ogaaday buuri الرجل الوحيد وانك قرأ الوحيد أفرس وإنيك واللوم إنيك الرجل الوحيد وانك قرأ وقفك قرأ وروح قرأ الوحيد في التاريخ كل تاريخ ده مانتد من آدم إلى مانتا الذي نجح كل نجح أعلى نجاح ماشي قصة رئيسة على المستويين لبدر جبا الدين هكا دينتا والدنيوي هكا دونك صار واحد ميكل هارس dadkaas taariikhda saa u macneeyay walaalayaal waxa ay uga jeedeen inay waxaan uga jeedaa anigu inaan ilaftu nadar ku sameeyo akhrista aan akhriyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam siiradiisa inaan ahayn faqad mujarrad sard al-ahdath inaan taariikhda nabiga ka sheekayna alayhi salatu wasalaam amba aan ka hadallo nabiga uun alayhi salatu wasalaam inay ujeedo leedahay inaan isla ogaano haddaba ikhwaani fillah nabigeena maanta waxa dadku xusaan bishan rajab waxay xasuustaan waa la isku haystaan ma la xusi karaa culimada suufiyiintuna waxay leeyihiin waa la xusi karaa culimada salafiyiintuna waxay leeyihiin lama xusi karo laakiin anigu waxaan qabaa inaan lana xusin lana xuso macnaha maxay ka tahay ma aha inaan ciid ka dhigno laano ciid maaha nabigu ciid kama dhigin alayhi salaam lamana soomi karo sunnaha nabiga kuma jirta alayhi salaam toolaata kala jira laakiin waan ka sheekayn karnaa taariikhdii dhacday waanan xusi karnaa sida u dhacday taariikhdani halka waxay ka tahay noolayn taariikhdii nabiga alayhi salaam fi kulli ahdaasihi laakiin inaan ka dhigno oon umaaratay ciid ka dhigno hada lam yarid nabigeena kama ahan sallallahu alayhi wasallam marka wasat baa noqonaa bayna suufiyati wa salafiyati halka haddaan ka baxay ikhwaani fillah waxaan imanaa su'aal muhiima su'aasha muhiimkii waxa weeyaan حدث كلا دعو الإسراء والمعراج قرمو دعي هرتا علماء waxay dhadeen wuxuu dhacay markuu nabigu 10 sano nabi ahaa yaa dhacday markii uu ka soo noqday dagaalkii maxaa dhaday dacwadii u baxay Daif uu soo laamay oo ay ku dhacday problem aan nabiga uuna filin alayhi salaam oo hadeeto makana uu ka tagay Daifna soo diiday meel uu ka caawiyay adduunka oo dhan uu ku madoobaday nabiga alayhi salaam وسوى رسولك إلهية وحاكو دعي أزمة بيكو دعي وحلو يقانا كريز أما كريزس إياكو دعي أزمة داس وحايا هيد متابستي نفتيسة قوذي سيتابتي عقلي سيتابتي دريندي سيتابتي يأس إنو قلو أيال إيكو دوادي مروغو إيكو نبي قال عليه الصلاة والسلام وحا إنتا أودار وحا دمتي هويني ديسي خديجة ناك إسلام عادية ماهين خديجة وحايا هيد قبل كدوان قبلها كلام صدح ريموت بكدوني هورتا خديجة رجاحة العقل عقليه بوحي حتى قيل إنها كانت تقود الرجال رجله قام جرتي أوكي ما خديجة تابعت لابو خديجة واحد امرأة أعمال واحد سيدة أعمال واحد قبل بزنس مانا وتقانا سوقة يسد الله شقشته صدح خديجة واحد سيدة إسلام واحد taqaana sida odaygeega loo dhaqo saddexdaasheeda sugaysatay uu nabigu qabo oo nabiga xaas uu yahay ayay dhibatay waxa kaaga filan nabiga markay caasha ku hinaastay khadiija iyadoo dhinsana waxay ka tiri maxaad ka hadal haysaa islaam gabowday oo dhimatay oo ma aragtay hadeeta ilaahay kaaga beddelay mid ka khayr badan wuxuu ku yiri ma abdalani allah khayran minha wax iyada ka khayr badan ma hayo aamanat bi wa irumaysay itkafara الناس markay gaaloobeen ولهذا waxaa la dhahdaa أول الناس إسلاما dadku markay taariikhda siiraha la qoray waxa dhada ninkii ugu horeeyay islaamay waa Abu Bakar gabadhii ugu horeysay islaamtayna waa Khadija ilmihii ugu horeeyay islaamayna waa Ali laakiin waxaasi waa wax uun la iska furfurayo laakiin waxa la rabaa iyo ugu hor islaamay adduunka بعد النبي صلى الله عليه وسلم nabiga dabadii أول الناس إسلاما qofkii ugu horeeyay ee islaamay waa Khadija weeyaan
هذا هو المرأة في الإسلام. إسلام ناقة هالكو دقي قف كي يقول لا إله إلا الله ينعض. أول صوت يسمع في الإسلام صوت كي يقول لما مقل إسلامك وخديجة وهويني أول شهيدة إسلامك قف يقول أردتنا ومارتي وسمية وهويني ويا مركا وحويا هوينكو إسلامك وحي كليهن ما ها درجات حقوقها وحي كليهن درجات النضالية وضد قبل مدونة وأوها الجمي دينة إسلامك يحرين بني آدمك. إذن خديجة رضي الله عنها خديجة ناقة عادية معها وحوي رسولكم آمنت به وإرميسة اتكفر الناس تذكرون ولا قالها وواستني بمالها حوله جن وإيدبتي إد منعني الناس إد حرمني الناس مركي دتكو إيد ديدين حولها أي دعوة ديدين حوله جن دعوة جلسي ورزقني الله منها بالولد وحو إلهي إسي أبدنا يضع لي أرزاقي نبي تضبوا دلي مارية القبطية بإبراهيم ده شيء لحنا كليتورنا وحا ده شيء نبي عليه الصلاة والسلام خديجة ده شيء مركا خديجة بنت خويلد عند رسول الله شيء مذهل وشيء وين وقبل مركي وحي يقصد دقيقون نحي نبيه وأرجع وقولي ده يمد كتري عبسنين هذا وحاته قف exceptional قف وحاته غير عادية وحاضن لا أساس غير عادية هأوفي كنس عادية وحاته إنسان غير عادية ما أعظمها من امرأة ناق عادية ما هي صلى الله عليه وسلم قبل بعد متى نبي مركا وحواي وحانو أبحيي السند الداخلي جودها تيركي وكتير سناب واي مركو غوري كسو هيدو غوري مugdi soo gali عليه الصلاه والسلام طائفنا oo ka soo laamay geeri ba ku dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam mugdi buna ku jira sallallahu alayhi wasallam marka nabigu alayhi salatu wasalam waxa radiyallahu anha khadija markay dhimatay dareenka ba galay sallallahu alayhi wasallam wa fi dakhil البيت مظلم اوكي هذا وحا دنتي اديركي ابو طالب او اها سنده الخارجي نينكي دبدك الدفاعي صلى الله عليه وسلم اي markii quraysh u imatay ay ku tiri ilmahaaga hadaan naga celinayn waan dilayna hadii uu joogsan waayo waan cadaabayna waan dilayna waan ka takhalusayna nabigu u yeeray inaa kiisara wuxuu ku yiri adeer waxan ma digidaysaa ما اسكديش dadka isnaas ka noolaadaan imka dadku hadlaan haasta iska ahaadaan maxaa kala socodiga ma nabigu wuxuu ka yiri wallahi adeerkay wallahi ya am hadii aad ceeda soo qaadaan midiga saaraan garabka dayaxna soo qaadaan garabka bidix ka dhigaan si aan arinkan uga tago kama tagayo amba ilaahi baa soo saaray arinta aan wado amba waan dhimani anoo arinta wada ilaa aan ka gaari ujeedadeeda wuxuu ka yiri marka adeerkii soco imtibur soco wad waxa wadaysid والله لن أسلمك أبدا كو قعنقل المايو أنا كو دفاعية إلا جانبك إذن لنا على بعض محاد عضي جيري بعد عضي جيري دو محاكر عضي دبدي قوده مركو قورغ يماده وعضله مركو دبده وقا بحانا يا دفاعي وعضله مركو قوده كسور نقضنا وعضله مركو دبدي وبحي دبدي ويسوئريتي وعضله سبحان الله ما أسوأ هذه الأيام أيامها وحكح المجرو ومركو أخي الدعاء وقعوا لسنبه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس كلمة داس ومهم إله وحان كأشكتون يا إيطاليا رديدا وحان كأشكتون يا حيلة در رديدا وحان كأشكتون يا دتك إدوليشت إيريشت وهواني على الناس صدح رمض بالشاقي ضعف في القوة أيو شاقي ضعف في الحيلة أيو شاقي وهوان دتك إنا يريشتين إذن أول لا استعمار سريو أولو دي دنيا حقوق دي سي أساسي قاعد نبيك صلى الله عليه وسلم إذن أريتاس هو مهم إنها كوهينو يساقو النبي ويتاس وحا كسيه الرئيسي وكسو بحي وحلو يقاني الحصار حصار بالعنا قبتي نبيك صدح سنراد إيا إساقا إيا قريش تدكي إساقا أدوا إيا قريشي حصارتي أو لقلي الشعب أبي طالب ما لنحضر wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa iyo wixii ka agdhawaaba ay cuneen geedaha ilaa ay sindada xayawaanka dhigeen 3 sano waxay qortay quraysh qaraar aan caalami ah waxay tiri waxna lagama iibiyo waxna lagama iibsado looma guuriyo lagama guurso lama dhaqmo waxa la dhadaa xisaar shaamil dhinac walba waa laga cun qabatay nabigu taabo ka soo baxay abi talib baa dhintay waxa dhintay khadiija طائف ka soo laamay mugdi buu ku jiraa هذه اللحظة لحظة داسي marka aan ururino saddex macno leedahay oo maanta aan arki doono taariikhda muslimiinta aan ka arkayno arinta koobaad waxa weeye
أرنت كوباد الحرارة سيلة حويان ولحظة ظلامية ومجدي مال أفق أو موقت مجرو أوريزون في الآفاق مال وكبح كر النبي موقته ومجدي أرنت الله بعد موقته ومحي كل المحيط ككم مرسان أردني ومعارض نبي يكون جدا isagoo quraata meesha jooga iyo saxaabadiisa arrinta saddexaad ee muuqataasi waa maxay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u maleeyay inay dadku dacwadiisa diideen oo ay aqbali waayeen idan malxal maxaa xala halkii halka buu ka yimid ilaahay ambiyada wuxuu u sheegaa sidoo muslimiinta uu sheego in ay dhibaatadu ay tahay bidaayatu nasri dhibaato culus markaad aragtid guul baa soo socota sidee u soo socota sidan baa loo yidhi nabiga isagoo iska hurda waxa uu yimid jibriil alayhi salaam uu toosiyay nabiga culimadu waxay isku hayaan saddex meelood qaar waxay leeyihiin xarabku hurday maalinta nabigu masjid al-haramka qaar waxay leeyihiin aqalka umuhani gabadhina adeertiya oo in abi talib ayuu hurday qaar waxay leeyihiin may aqalkiisii maartay cilada ahay khadiija ka dhimatay ayuu kaligiis ka jiifay uu hurdaa nabigu uu yimid oday maartay jibriil alayhi salaam malagii weynaa wuxuu saraka ya rasuulallah oo kacay nabigu haddana uu faro ka qaaday haddana uu kiciyay haddana uu faro ka qaaday markii saddexaad wuxuu u kiciyay markaa buu soo toosay wuxuu arkay jibriil wuxuu soo kacay aqalka hortiisa waxaa fadhida xayawaan ilaahay soo diyaariyay oo loo bixiyay magaciisa buraaq nabigu wuxuu ku yiri waa baqal bay ka sareysaa faraskana way ka hooseysaa baqashana way ka weyn tahay wayna cadayd wuxuu yiri meesha isha saarto iyo lugta saaraysay waxayna ka imatay hilaac min albarq marka korbeer uu koray isla markiiba waxa loo qaaday ilaa iyo magaalada Qudus masjidkii Maka laga qaaday Qudus baa la geeyay kadib halkaas waxa lagu sii diyaariyay laba shay ambiyadii oo dhan baa la diyaariyay wixii ambiye Ilaahay soo diray halka baa lagu diyaariyay iyo rusushiiba oo arwaaxdoodu baa soo dhacay kadibna waxa lagu dhahan ku tuji salaad uu salaadii buu tujiyay miftaaxi hogaanimadu ka qaatay kadibna nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa loo keenay koob caana ah iyo koob khamri ah هو أعب أولي رسولك وحو دورتي كوبكي عاناهيد مركابو عبي كوبكي خمرقا وسكرتك جبريل باكوري هداد دور لهيد كوبكي خمرقا ومدادو ويدمن لهيد لأقوة أمتك ومدادو خمر بيكو بابي لهيد أوكي كدبنا نبي سبحانه الله عليه السلام إلا إله اللوغي تبارك وتعالى جبريل ميرو القارين جبريل باكهري جبريل بمركا نبي وصعدي إلا إله إلا الله تبارك وتعالى مركا النبي عليه الصلاة والسلام هبينك محلو كياني ujeedada ma aanan ka sheekayno wuxuu soo arkay salaad baa loo soo dhiyay waxaas cumada ka maqasheen laba shay baa loo qaaday awalan waxa loo qaaday in laga saaro cidhiidhiga uu ku jiro oo la tuso adduunku intuu arkaya maahina uu ka balaanayahay juqraafiga diintu inta ay gaari doonto in la tuso wakii xadiis ku sheegay ilaahay dhulkoo dhan buu tusay waxaan arkay inta ay diinteedu gaadhiso marka diintiisu iyo ummadiisu intay gaadhiso iyo dusha inta la geeyay iyo khariidadii kaartigii la tusay waxa laga saaray ceeriga yaray Maka uu ku jiray ee Abi Jahl la kulmayay Abi Lahab la kulmayay Abu Sufyan la kulmayay Walid ibn Mughira la kulmayay oo Khalid ibn Walid la kulmayay oo Ikrama la kulmayay oo waxaan yar oo ka cabsinayeen oo inta buurahan dhaadheer u arkayay waxa laga saaray waxa lagu yiri al-kawnu laysa huna faqat al-kawnu a'zamu min huna wa ummatuka abqa waa laga saaray arinta labaad nabiga kaleey salaam waxa loo geeyay ambiyadii buu la sheekaystay Ibrahim iyo maarta Idris nabi walba wuxuu uga sheekay Muuse tajribadii uga sheekay tajribadoodii iyo habeenka ay uga soo sheekayeen in ay wax walba soo arkeen ay soo mareen ay ummadaha la soo mareen ayaa looga sheekay ولذلك إلهي محوكوري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آيات كيغا سيان أتصنو يا نبي أكر قادني عليه الصلاة والسلام إذن waxaan halka uga jeedaa wax walaalayaal maanta adduunka islaamka ee ku noolahay waxa ka socota afar arimood oo u baahan inaan isdul taagno arinta koobaad waxa weeye adduunka islaamka waxa ka socda isticmaar khariji guumaysi in haysta oo inoo diidan inaan horumar gaarno waxaad ogtihiin wadanka Turkiya oo ku guuleystay markii ugu horeysay inuu ka soo dhaadhaco dabaq 90 dawladda 90 dadka dhaqaalaha oo yimaado dawladda 16aad oo uu ku biiro 20ka dawladood ee dhaqaalaha ugu waaweyn waa wadanka qura ee muslima ee sameyn kara hub itaal badan Iran baa ku xigta waa wadanka quraata ee muslima ee sameeyay markab qaadi kara diyaarado
وودك قراءة مسلمة maanta deenkii inta badan iska dhameeyey waxaasoo dhan markuu sameeyey waxaa la gudagalay in la inqilaabo ninka Erdogan la yidhahdo inqilaabkii koobaad waa lagu kari waayey kii labaad waa lagu kari waayey inqilaabkii saddexaadna wuxuu dhici gaadhay ayaamahan oo wuxuu ka dhici gaadhay dhinaca doorashadii baa lagu inqilaabi gaadhay Golan iyo raggii khatartii iyaa ka shaqeynayba doorashada waxaa la yidhahdaa waxaa la qaatay laba shicaar la yidhaahdo tasqud اسطنبول تسقط تركيا تسقط اسطنبول يسقط أردوغان هذا دعده اسطنبول أردوغان ودعي هذا اسطنبول هو جوليسنو وكخان أردوغان ودعي يسقط أردوغان تسقط تركيا أردوغان هذو دعنا تركيا ودعي لأن مشروع الإنقاذ وحاوذا أردوغان وحوير أردوغان وننكد محور ما ندوته محور نحن نقرأ السيرة لا لأجل التسلية ولكن لأن النبي صنع المعجزة في السيرة التاريخ ذا وما أخرناه بس إن أخرناهم وحانو أخرنا لأن النبي محمد سدوء السمية معجزة دي هو مركب تامك على صبحنا صلى الله عليه وسلم مركب استعمار كني وديدي هي maxaa loo xiray tajribadii ugu horeysay dimuqraadiyadda ee dalka Masar ka dhacday ee keentay Mursi maanta waxaad ogtihiin inay tajribo kale ka socoto wadanka Jazaa'ir sidii Mursi baa lagu wadaa ninka meesha afgambiga wada ciidankii baa amar la siiyay si ay u qabsadaan ad-dawla al-wadifiya si ay uga bixi lahaayeen way ku tala jiraan riyadu laakiin waxaad ogaatiin inuu jiro dhalaam dibadda ka socda oo u diidan waxa jirta waxa dhacdo badda cad iyo badda cas dusheeda inaynan ka dhicin xadaarad haddii kale iyada noqonaysa xadaaradda adduunka hogaaminaysa idan taas waa inaan garanno هذه المنطقة صاب الله تعالى عليها أرنت لبعض إن هيستوى وحويان أبي جهل أبي لهب سفيان ويجوغان حيكو جوغان وحيكو جوغان من خلال المستبدين السياسيين رجل دكتاتير رضع لحدا كن شن لحدا كن تضباطا كن أو قف أو أقويانا مصر كحرين وحويان يمن ترتري بابي مارت من شارقاتي يقف بين يدنا كوغوغوي مارت صحفي جمال خاشقجي هذا موجود ديدا أي مسلم إنه مدح الله سوكعه ديدا دادك الصومالي دو إنه بترول كوغا فقدان اسك ديدا وحويان تاسنا ومستبدين قول صدحات باجرتا كهنا ودادو كشقين يسا إنه مسلمين تم مدح كحدان صدح شينا كدادعيان قرآن كيسكو أخرية وجينك كيسكو سارة بس وحكا لقرآنكو ما قبطو قرآنك إلهي اللي تلقى إنه منهج نقضه وحاكو أخريها ديال dadka $100 ka qaado hada diin nabi maxamed dadka aqligu ku xurey moota halka dhigmaan inay doonaan wadaadda ka shaqeynaya inay ku dhaadin madaxdu xataa haday islaantaada fuulaan iska adeec haday gabadhaada xitaa u tagaan mid ba ka soo baxay soo sayid gabadhaada haduu kugu hor fuulayo waxba ma sameyn karayso iska adeec haduu khamriga cabay khinsiir cunay iska adeec haduu wadanka uu cuno iska adeec nabi maxamed baa sidaayay ku leeyahay saasan diinta saakule wadaadda ay kale wadaadda saddexaad baa jiro oo dadka uga sheekeeya xuquuqda ciyaalka xuquuqda xayawaanka xuquuqda hooyada xuquuqda laakiin kama hadlaan xuquuqda shacabka ay ku leeyihiin dowladaha kama hadlaan okay waa culimo diin lama dhada kahana dhada waa kuwii ilaalin jiray kaniisadaha iyo waxaas okay dadka waxay ku dhahdaan duca doonaysiin annaka noo yimaada quraan maan akhrinayna ilaahay baan bariyana jannada geeyna oo adiga ma kaniisad baa diin islaamka la kaniisada fil islaam islaamka kaniisad male arinta afraad ee muslimiinta haysta waa maxay waxa haysta qaaruuniyiin dad xoolihii muslimiinta xaday oo boobay oo milyaardeer ku noqday oo waliba qarsaday oo Yurub iyo Mareykan geeyay sida un baa hay waqti waliba soo dagay kaleey salaatu wasalaam mugdiga baa jira maanta adduunka muslimka mugdiga waxa u dheer dagaal ehliya waxa u dheer dagaal qabaliya waxa u dheer dhiig la daadinayo shucuubta la isku diro yaa u dheer dadku cadow la iska dhigo si ummadani u haleelin inay noqoto ummad nool idan qofka muslimka ee marxaladda nool wuxuu nool yahay marxaladii ka horeysay Israa wal Mi'raaj marxaladii ka dambeysay islaamku uu furmaadito waxay ahayd fatxi maxaa yeelay nabigu dacwadda wuxuu waday 23 sanadood marka uu 10 sano wado dacwadda ayaa cirka loo qaaday 13 sano ka dambeysay 13 sano ka dambeysay marxaladda hadiyatu futuuxaad buu nabigu bilaabay dad soo islaama inuu takhdiidkii iyo inuu dajiyo hadiyatu istiraatiijiyadii laga bixi lahaa dhibaatooyinka dhacday ayuu nabigu sameeyay sallallahu alayhi wasallam okay
halkaas waxa ii hadhay inaan laba arrimood ka hadlo. Arrinta labaad aan ka hadlayna waxa weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa sida culimadu qoraan fi siira kaana daa'ima tafkiir had yeer uu fikirayay maxay had yeer uu fikirayay kaana daa'ima البحث عن المشكلة مشكلته هل كلمة مبادئ ودائما البحث عن حلنا وبادئ جري عليه الصلاة والسلام ولذلك مركز الصحابة النبي قال النبي سيان لود دبجرين وحول الأرض بحا ويتوبيا تقع بقر عادلة فردية استراتيجية بهد وحول بدبادين الجيش عيدا كيسة أتباع ديسة إلا استئصاله إلا ترتره نبي صلى الله عليه وسلم وحول دوني ضد دعوة اللقاء هل من رجل يحميني لأبلغ كلام ربي ما جرى قف بني آدم إلى أن سيان دين تذكو قارسيو نبي صلى الله عليه وسلم تحالفات بدودوني ضد الله تحالفه ولا سمايو هشيسي استراتيجي كالا سي لوغا بخو بروبليم يدا يا مشاكل بلادك هايستا اذا النبي دائما البحث وها marka marxaladan maxaan ka faa'iideynaa inaan anaguna maskaxdeena maalno oon khudado aan dejino marxaladan laga bixi karayo okay marka intaas markaan ka baxo insha Allah taala waxaan jeclahay inaan kelmad yar kaga baxo oo ku saabsan arrin Djibouti ka dhacday bariyahan dambe oo dadku ay aad u hadalhayaan nin la yiraahdo Axmed oo maalqabeena oo reer Djibouti anu isaan ogahay weeyaan anu reer Djibouti oo jamhuuriyadda Djibouti u dhashay kuna dhashay waraaqadaha dalkan haysta لأن الجيبوتيان نمدو وسيدة كنديان نمدا قف كستي أو رير جيبوتي وحلو يقعنا قفكو وحور جيبوتيان كون نقضا سيدة كو قرن قانون كجنسية دي جيبوتي لبا الرماد بكون نقضا إنو جيبوتيان نقضا وحكون نقضا إنو جيبوتي كل شيء مركا جيبوتي كل لتيد واحد ليس حق الأرض حق الإقليم دول كيات كل لتي جيبوتيان كون نقضا إيه واحد كوها ليس حق التجنس إن جنسية دي لقصيو أو لقو أقبلو أو ماملكو وكسيو جنسية وكسيو وحضانيو marka qof kasti oo jinsiyadda reer Djibouti haysta annaka agteeda waxa uu naqaanaa inuu yahay qof reer Djibouti marka ninka Axmed ee la isku haysto ee khilaafku ka dhex taagan yahay beel kamid ah beelaha Somaliland iyo xukuumadda Djibouti annaka waxaan aaminsanahay inuu yahay nin reer Djibouti ninkan inta aanan ka sheekeyn khilaafka isaga iyo dowladda dhex yaala waxaan jecelahay inaan tilmaamo horta Axmed maaha qof aan la garanayn waa qof la yaqaano qof xunna maaha dad fara badan oo dhalinyaro soo badhayaan nin xun oo wax boobay oo saana maaha laakiin Axmed wuxuu ahaa nin aabihi xoolo lahaa isaguna xoolihii aabihi uu ka dhaxlay kadib sii dhaqdhaqay oo xoolihiisii ka sii shaqaystay buu ahaa arrinta labaad Axmed si uu xoolo u yeesho Djibouti waxaa jira si aad xoolo u yeelatid waa inaad laba arrimood samaysid inaad nidaamka la heshiisid waa koow nidaamkuna waa laba qof waa Ismaaciil Cumar iyo xaaskiisa iyo inaad nidaamka aan la heshiin laakiin aanad ka hor iman haddaad ka hor imanna kuma daynayaane laakiin wax yar bay ku ogolaanayaan isagoo wuxuu qaatay qaraarka inuu nidaamka la shaqaysto marka xoolaha Axmed nidaamka uu la shaqaystay arrinta muhiimka wax weeyaan Axmed marka uu Axmed lacagtan uu ku dhisay warshada Coca-Cola banka BCE uu amaahinayay wuxuu ku amaahiyay laba arrimood daraadeed arinta koobaad waxa weeyaan Axmed oo lacag leh oo shirkado badan Djibouti ku leh laba Axmed oo damaano adag haysta damiinka koobaadina wuxuu ahaa banka loo yaqaano Bank National oo madax ka ahaa ninkii dhintay Ilaahay naxariisto ee haweenka madaxweynaha amba xaaska madaxweynaha ama marwada koobaad ee Djibouti Khadra Xayd walaalkeed ahaa ayaa banka damaano ka noqday si lacagta inta leeg loo siiyo lacagtii waa la siiyay waxaad ogtihiin markii la furayay warshada Coca-Cola ee magaalada Hargeysa laga furayay waxay ahayd warshad ay fureen labada qaranka Somaliland maamulkiisa iyo qaranka Djibouti maamulkiisa waxaa shirka joogay 7 wasiir markii la furayay qaarkood magacooda waa in sheegaya waxaa kamid ah Ali Cabdi oo markaa wasiirka wuxuu ahaa itisaaladka communicationka waxaa tagay wasiirkii cadaaladda oo Ali Adnaan ahaa waxaa tagay wasiirka imika difaaca markaa moojin wuxuu ahaan jiray xasan waxaa tagay wasiiro caynkaas u badan waxaa tagay madax waaweyn oo qaarkood yihiin maaragtay dejiye ay yihiin oo director general ay yihiin waxaa tagay rag macruufa oo taariikhda Djibouti maamulka ka agdhow Haashim baa kamid ahaa waxaa tagay dumar aad u fara badan 3 diyaaradood ayaa ka kacday Djibouti oo buuxda oo magaalada Hargeysa tagtay oo maamulka Djibouti uu diray si loo furo sharikadaas
looga soo qayb galo waxaana ka mid ahaa hogaamiyihii ilaahay u naxariistee baanka dhexe xukumayay Ina Xayd ayaa isaguna halkaa joogay oo tagay oo hogaaminayay khudbadihii la jeedinayay dhammaan waxaa loo mahadnaqayay Ina Xayd markii wixii loogu noqdo taariikh loogu noqdo idan waxa weeyaan Axmed marka uu heshiis wuxuu la ahaa nidaamku la ahaa lacagtana si uu helo systemku la heshiiyey laakiin khilaafkan weyn ee dhacay maxaa keenay dadka halka suuqa looga bilaabaya khilaafkan laba shay baa keenay khilaafka waxaa keenay laba shay ma aha saddex shay wax keenay laba shay baa keenay waxa weeyaan khilaafka waxay haweeneyda madaxweynuhu aaminsanayd Ina Xayd ilaahay u naxariistay ee lacagtiisii uu baanka dhexe ka qaadi jiray iyadana uu ka qaadayay isagana uu ka qaadayay inuu ku darsaday rag beesha isaaqa u dhashay oo dhammaantoodba la haysto oo la leeyahay lacagtii Ina Xayd halkan soo dhiga waxaa ka mid ah dadka lacagta lagu haysto ninkana ka mid ah marka Axmed waxaa lagu haystaa waxa weeyaan lacagtaas aad qaaday soo celi walaalkii uu ku dhiibtay iclaamka lagama oran karo daacadaha lagama sheegi karo laakiin hada hiya alxaqiiqa arinta labaad waxa weeyaan ee la isku haysto ikhwaani fillah oo inaad garatina maadaama caqli loo baahan yahay in wax la taxliiliyo waxaa la diri wixii imika iska dhaafo waxan baan kula yeelano isaguna taas buu wax ka qabay yeelashada iyo wax ka qabay arintaas marka sida loo sawiro anigu ma rabo inaan gala tafaasiisheeda anigu waxaan aaminsanahay haddii ay jirto maxkamad Jabuuti cadaalada oo xeer keegu uu ka xoray oo sultadeedu power keegu ka xor yahay maxaa la dhahdaa dawladda ama maamulka uu ka xor yahay waxaan oran lahaa Axmed hala keeno maxkamadda Jabuuti lian Axmed reer Jabuuti weeyaan okay uu noqon karaa reer Hargeysana oo reer Somaliland maxaa yeelay qofku waa loo ogol yahay waxa dhado double nationality waxaa jira dadka looyarada iyo xeer yaqaanku anu jiish baan ahaan jiray qaadi baan ahay takhasuskayna waa qaanuun waxaa la dhiraahdaa waxaa jirta waxa marka qofka maxkamad la taagayo ma waxaa la eegi meeshuu dembigu ka dhacay mise jinsiyadii qofku uu sitay markuu dembigu dhacay baa la eegi waxaa jirta waxa dhahdo التنازع القوانين waxa qawaaniintu markay isku dirayaan qof sidii maxkamad loo taagi lahaa buuq badan baa ka taagan madrasado badan baa ka jira aaraab badan baa ka jirta waxaan la akhrinayo maarata sanba sax sana sax kama jiraan aaraadu way badan yihiin mid baa la rajaxaa waxaana anu aan rajaxaa qofka waxaa la eegayaa meeshii ay jariimadu ka dhacday okay laakiin maxkamadda Jabuuti ma xorba maxkamadda Jabuuti ma xor Jabuuti maxkamadii kama jirto Jabuuti waxaa ka jirta dawlad ninku urursan qofka uu nacana uu xidhaa qofku jecel yahayna wadanku ku sii daayaa wuxuu doonu sameeyaa marka haday cadaalad jirto waxaan oran lahayn alla keeno cadaaladda hala taago maxkamadda Jabuuti Cabdiraxmaan Boore maxkamadda taagtay Cabdiraxmaan Boore khalad waa lagu qaban karaa waana lagu haysan karaa in kasta maxkamadda Ingiriisku tiri khalad lagu haysto laakiin haddana waa lagu haysan karaa laakiin iyo haysan karaa maxkamadda cadaaladda maxkamadda Jabuuti 9 meelood bay ku xukuntay Cabdiraxmaan Boore in la xidho 15 sanadood xoolihiisina la wareego maxkamadda Jabuutina inta uu ku xukumi doontaa isagoo maqan Axmed kadibna waxay ordaytaa xoolihii waa la wareegay waa saaw maxkamad xor ma aha waa maxkamadda annaka markii aan culimada ahayna soo taagtay ee been sheegtay ee sanad iyo 6 bilood nagu xukuntay bila hadal ninkiina xukumay na waxa laga dhigay markii reedba wasiir ba laga dhigay marka Jabuuti ma aha maxkamad xor ah oo Axmed la geyn karo ma aha okay Faransiiskana lama geyn karo de jariimadani Faransiiska ma dhicin waxa la isku haystay haday jirto mutaham wuxuu ku yahay Faransiiska ma dhicin okay Somaliland waxay ku leeyihiin dawladda ictiraafsan yahay ma aha laakiin Somaliland waxay leedahay annagu maxkamadda waa taagi karnaa okay dadkiisuna waxay leeyihiin xagan ha lagu taago waan difaacayna xaq bayna u leeyihiin inay hadalka ay ku hadlaan laakiin su'aashu wax weeyaan anu waxaan isweydiinayaa su'aasha ah madaxweyne Ismaaciil Umar Geele inta qof ee uu muddo 8 sanadooda uu isku dayay inuu soo qabto uu ku fashilmay baa nitirnaya horta waxaan ka soo bilaabaynaa ninka la yiraahdo maaragtay xaqani reer Jabuuti oo lagu qabtay Yaman oo ciidanka Jabuuti ahaan jiray oo Araba Yamani asalkiisu yahay laakiin waa reer Jabuuti markhaatina ka ah qadiyadii maaragtay muxuu ahaa Borel ka ninka safiirka ka ahaan jiray magaalada Sanca oo iminka ka ah dalka Masar Maxamed Duhur la yiraahdo iyo ninkaas dawladda qabtay waa la qabtay kadibna ninkii wuxuu orod ku galay safaaradda Jarmalka wuxuu tusay inuu yahay nin European oo reer Belgiga sida daraadeed baa kadib loo soo badbaadiyay uu ku fashilmay arintaas waxa ugu horeeyay ninka raado Axmed Diin Ilaahu naxariistay oo Yaman isna lagu qabtay intii fruitka ka horeysay
oo Ismaaciil Cumar Geele uu diray nin safiir meesha ka ahaa isagana waa la badbaadiyey uuna baxay waxa kale oo ku xigtay oo saddexaysa oo laba halkaasi waxa saddexaysa in uu Cabdiraxmaan Boore laba meelood ku qabtay oo uu soo dhiibay yiri marka hore wuxuu ku qabtay magaalada Spain buu ku qabtay Madrid wuxuu u dhiibay maaragtay qoladan la yiraahdo maaragtay maxaa dhahdaa booliiska la yiraahdo maxaa magaciisa booliiska caalamiga iyo u dhiibay Interpol marka booliiskaasi markii loo dhiibay waa la qabtay Cabdiraxmaan Boore kadibna waxa lagu waayay waa la soo sii daayay haddana magaalada Yemen waxa lagu qabtay Imaaraadka Abu Dhabi waxa lagu hayay 3 cisho waa la sii daayay waxa haddana ku xigtay Maxamed Daahir Roble buu ku qabsaday laba jeer loo yacday iyo kaga daba tagay intuu isagu qaaday waraqadii ka qaaday oo tuuray oo lagu tuuray cilad iyo haddana ciidan laga daba diray mukhaabaraada Maxamed Daahir abtiyaashi iyo tolkiiba badbaadiyay way la baxsadeen ilaa iyo waxa la geeyay magaalada dhahdo Istanbul kadib Istanbul buu kaga daba tagay Istanbul buu haddana ku soo qaban gaaray ilaahay baa ka bixiyay tabaaraka wa tacaala isagoo habeenkii la afduubayo darada soo raacinayo shacbigii baa soo booday waa laga qabtay dawladdiina Turkiguna waxay tiri war waxaan ka meeray sabaryahay ninkan wuxuu sameeyay maanta waxa loo yimid Axmed ina habeen madow la qaado dadkiisii baa waxa arkay iyaga la baxsaday oo waxay geeyeen meelaha beeshiisu ay ku badan tahay ee magaalada Hargeysa oo loo ilaalinayo iminka idan waxa weeyaan ninkani xoolihii dalka wuxuu galiyay inuu dad daba ordo bini aadan uu sidoo soo qaban lahaa uu keeni lahaa arinta waxa keenay waxa weeyaan marka iminka fashilantay arinta madaxweynaha Furiidka ya gadame oo uu doonayay in uu soo qaado uu soo hooyo maxkamadihi waxa iska diidan markuu arkay inuu taa ku fashilan yahay iyo furay dooseegan amba malafkan maaragtay iminka ku socda walaalkeen Axmed amba inanka Axmed dhado markuu qadamo ku fashilmay marka gadacame isagana uu ku guuleysan kari waayay inuu soo qaado maxaa yeelay qadiyadiisu waa qadiyad caadil oo aan ahayn qadiyad yar oo meel dhow laga soo qaadi karo dad bini aadana daba soco oo soo qabo wuxuu galiyay xoolihii dalka oo dhan Ismaaciil Cumar Geele marka dadka reer Djibouti markay akhrinayaan inay kul maxabad akhrin qaarna dadka qaarkood waxay akhrinayaan qadiyad yar oo dhow waxay oranayaan maadaama ay qoladaasi jawaabayso anaguna haddaan reer hebel reer quracman anagoo reer dhagax u jawaabayna in dadka la wareeriyo maaha mushkiladu waxa weeye war dalkan Ismaaciil Cumar Geele iyo Khadraxayd way ku ciyaarayaan waxay ka dhigteen riwaayad iyo masraxiyad lacagtiisi waxay ka dhigteen waxay kala maxkamad geeyaan oo malaayiin lagu cuno dadkiina gaajo iyo faqri ayaa dilay marka qofkan waa inuu waxaan iska dhaafo oo loo talaabo dalkan badbaadadiisuna waxay ku xidhan tahay in la helo maxkamad cadaalad haddaan helo Cabdiraxmaan Boore waa la keeni Axmedna waa la keeni qof kasti oo reer Djibouti oo wax lagu haystana waa la keeni Ismaaciil Cumarna waa la keeni Khadraxaydna waa la keeni xoolaha oo dhan ba halka baa la wada keeni maxkamadda cadaaladda ummadda u dhaxayni oo qof walba oo qof wax ku haysto halka baa la keeni maxkamadda cadaaladda leero oo qofna uu qof ka sarreyn wayna jireen maxkamadda cadaaladii dadka reer Djibouti waxaan ku weynayaa inay ka baxaan dooda ah anagu haddaan reer hebel nahay kaasi waa reer hebel waa filan la sameeyo oo waqtiga in laga ridayo arinta labaad waxa weeye dalkan badbaadadiisu waxay ku xidhan tahay in aan fiirino siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam in aan noqono tafkiirka dhinaca fikriga muhammadiyiin aan noqono oo aan noqonin qabyaaladismi aan noqono in aan meel hoose aan ka sheekin oo noqono dad sare oo meel sare ka hadlaya marka taas waxay na tusaysaa war Somaliland Soomaaliya iyo Djibouti waa dad walaalo ah dawladuhu masaalix bay leeyihiin interest bay leeyihiin maanta way heshiis birna way isku amaanayaan kuwan caayay imka Ismaaciil Cumar shalay way amaanayeen birna way amaani doonaan Ismaaciil Cumar kuwa amaanaya ee caayay maartay arab caayaya بريتوله waxay arki doonaan Ismaaciilo ugu yeeray magaal aqalkiisa oo salaadiintii arab la sheekaysanaya marka maxaad u doontaa marka siyaasaddu inay niwaanin caruurobina ee kor u kaca oo qadiyada waxaad u aragtay inay tahay qadiyatu xaqin oo baatil inay tahay qadiyadu wadan iyo qof marka kolba qof baa la qabsanaya qofkani meesha lagu garan lahaa inuu baadil sido oo maxkamad cadaalada Djibouti kama jirto maxkamadda Hargeysa ka cadaalad badan تحمر بك عدالة بدن تبونتينات بك عدالة بدن تضرر بك عدالة بدن تجيجيجا كعدالة بدن تأدي السبا كعدالة بدن وحويان يدا يوحى اسكمدا تإريتريا السودان باسكمدا انت waxa haysta mid duqyaan oo dictator oo sidoo yiraahdo dadka loo xukumo haduu ku raado 10 sano xarig 10 sano lagu xadhi ninkii maxaaratay jabha la oran jiray wuxuu ku dhintay xabsiga isaga oo laga soo qaaday buuraha okay jabhadiisi waa la heshiisay maxaa loo dagaalamaya muxuu sameeyay
maxaa loo dilay, muxuu gaajo ugu dhintay, maxaa dawo loogu diiday, maxaa maxkamadda loo geeni waayey, muxuu u yidhi wasiirka ra-iisul wasaaruhu waa bilaa waraaqo, haddana muxuu u haysta hadduu bilaa waraaqo yahay. Markii lasoo dhigay isaga oo garab jooga maaragtay Axmed Diini heshiiskii laga gelay ag joogana waa Jibuutiyaan buu ahaa. dadka waa la warinaya, masaakiinta waa la warinaya. ninkaas xabsi buu ku dhintay, taariikhda u taallaa, waa la xisaabtami doonaa, waxaan wax la iloobi doona maaha. markaas shalay markii odayaashii hadleen ay yidhahdeen war buldhoqo dhibaata ka dhacday, war han isla eegno, waa la xidhay, sakaraad baa laga dhigay, dhibaataa loo geystay, iminkana waa lasoo sii daayay, haddana waa la celi doonaa, waa lasoo sii doonaa. waxaan si looga baxo waa inaan xal loo helo, waa inaan muxamadiyiin noqono sala allahu calayhi wasalam. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. جزاكم الله خير. وما سنتهين أدمني سلام يا إن شاء الله. تقبل الله منا